waxa kaloon xasuusinayaa taageerayaasha faraha badan leh haddii hooyo ay dhasho 4 wiil 4taa wiili waxay noqdaan walaalo hadduu baydhabo ka heesiyo hadduu boorama ka heesiyo hadduu gaalkacyo mudug ka heesaba fanku waa walaalo baryahan dambana waxaad moodaa in dadkii siyaasad ahaan aad fanaaniinta u kala saaraan anaga iska kixigna idinkaana naxiga idinkaan idinku xurmaysannahay si aad noogu xidhan tihiin ayaan idinka mahadnaqanaa shacabka meel kastoo ay joogaan Soomaalidu dhamaanku siyaasi noqotay kaad aragtaaba siyaasadda dhinaca haya laakiin waxay garan lahayn wali inaan fanaan waxaan doonaa aaminsanaan ugu fanaan baan hay Soomaaliyeed oo bulshada Soomaaliyeed u dhaxeeya ama haweenata ama ha yaraato anigu inta mid baan mid noon wada arkaa ka fanaankoodu waxay dadkan siyaasadda iyo maxad aaminsanayna niyahow mid kastoo ay soo sheegaan bootay fanaankoodu marka bulshada waxa ku qancinayaa halka saaro fanka iyo siyaasadda walba af Soomaaliyeed laga hadlo ama lagaga dhawaaqo waxaan leeyahay waan tagayaa waana ka heesayaa anuu fanaanad Soomaaliyeed afka Soomaaliyeed ku heestaan fanaanka iyo wariyaha iyo dhakhtarku intuba xuduud ma laban oran karaa waxaan leeyahay fanaanku waa fanaan waxa wanaagsan in uu meel walba uu isagu waqti xaadirka fanaanintu waa iska sida dadkan ay sheeg maxaan raahdaa ay wax ku soo degaan oo kale iska dhaqaaqo kale weeyaan fanaanintu habeenba meel baa ku soo dhacaysa wuxuu jecel fanaanku inuu tago fanaanku la caqabadeeyo maaha fanaanku maskaxiyan iyo moraaliyan buu heesaa hadana moraal ama maskaxaanu haysan waxaan oran karaa fanaanku wuxuu heesayaa ama wuxuu bulshadiisa u soo bandhigayaa mid jirta fanaankuna waa muraayada bulshada waxaan leeyahay marka cid doontaba ha noqotee anigu cid aan ataagaya aniga waqti xaadirkan aanay jirin fanaanka caqabadaha laga qaado halana daayo waxa dadka muhmal iyo madow kaga jira xidigaha geesku ciideeyeen ana idin leeyimka qora xidigaha geesku waa reer Soomaaliland laabsaale wuxuu yiri intaad oran lahaydeen imkaan idin leeyahay waxayna walaaleeyay dadka Soomaaliyeed afka waanu in xurmeynaa waanu idin xiiseynaa ixtiraam iyo qadarin baanu idin haynaa laakiin meeshaanu ka soo jeedno inaanu noqono hadaba wad qaadanaysaa in Xasan Dhuxul Cunsuri yahay imkaan idin leeyahay xidigaha geesku waa reer Soomaaliland